kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa caawa la ciyaari doonta 9 saac oo habeenimo kooxda kubadda cagta AC Milan waana mid ka mid ah kulamada ugu muhiimsan ee tartanka ICC Cup. kooxda uu hogaamiyo tababare Ernesto Valverde ayaa kulankan haysata qaar ka mid ah ciyaartooydeedii muhiimka ee soo laabtay, balse Blaugrana mar kale lagama yaabo inay halis geliso xidigaheeda sababtoo ah waxay isku diyaarinayaan xilli ciyaareedka cusub bilowgiisa. inkastoo xidigo muhiim ay soo iibsadeen, haddana badi ciyaartooydaasi ma safo tababare Ernesto Valverde oo qaar ka mid ah xidigaha da'yarada ee kooxda ayaa fursad loo siiyaa in kulanka muhiimka ay ciyaaraan. AC Milan ayaa doonaysa inay guul kusoo gabagabayso tartanka ICC Cup, halka Barcelona iyana doonaysa kaliya in kulankan ay diyaar garowgooda xilli ciyaareedka soo socda ay ku xaqiijistaan. kooxda Blaugrana ayaa difaacanaysa horyaalka iyo sidoo kale Copa del Rey, waxayna sameynayaan suuq fiican marka la fiiriyo xidigaha ay la soo wareegeen. waad ku mahadsantahay daawashada videogan, fadlan ha ilaabin like iyo share kadibna inaad daado subscribe. mahadsanid.